اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. marka horeysa waxaan salaamayaa dhammaan saxaafadda soo ajiibtay yeeritaankan u yeeray ee aan ugu yeeray xafiiska degmada Maxamuud Haybe. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa marka horeysa. mar labaadka waxaan idinku yeeray inaan halka ka iftiimiyo arrin shalay ka dhacday degmada Maxamuud Haybe. arrin ka dhacday degmada Maxamuud Haybe oo saxaafadda maanta ku soo baxday oo ka hadlayo gudoomiyaha degmada Salaxley oo ka sheekaynayo dhacdo ka dhacday degmadiisa isaguna oo ka dhigayo dhacdo ka dhacday degmadiisa. waxaan u sheegayaa dhammaan inta miidiyaha la xiriidha hadday tahay jaraa'idada iyo hadday tahay kuwa la iska arkaba waxaan halkan ka iftiiminayaa inaan arrintaasi ahayn arrin ka dhacday degmada Salaxley ee ay tahay arrin ka dhacday degmada Maxamuud Haybe. maayarka Salaxley wuxuu saxaafadda ku soo saaray in xabada lala dhacay mas'uuliyiin ka mid ah golaha deegaanka ee Salaxley oo ay weerareen anigoo gudoomiyihii degmada Maxamuud Haybe iyo konsalka golaha deegaanka ee Hargeysa inay weerar ku soo qaadeen Salaxley ayuu iftiimiyay. arrintaa waxaan u sheegayaa mujtamaca miidiyaha la xiriira ama wax akhriista ama wax arkay wax daawada inaan haba yaraatee wax ka jira ayna jirin. waxaan halkan ka iftiiminayaa inay arrintaasi degmada Maxamuud Haybe gudaheeda ka dhacday soonaha ay xukunto. Salaxley waxay Hargeysa u jirtaa 76 kilomitir bay u jirtaa. degmada Maxamuud Haybena waa bartamaha Hargeysa. degmo walibana si ay ogsoontiin state degmay Hargeysa ka kooban tahay waxay xukuntaa nawaaxiga wixii ka kooneeya magaalada gudaheeda ama gudaha magaalada wixii saarka ka ah ilaa mitirka ayay degmada Maxamuud Haybe xukuntaa. degmada Axmed Dhagax la simanna waxay xukuntaa ilaa mitirkeeduna. waxa dhacday baryahanba in maamulka degmada Salaxley uu weerar ba'an ku hayay oo dhul boobnimo ah oo dhul boobnimo iyo ixtiraam darriya inuu ka waday degmooyinka Maxamuud Haybe iyo nawaaxigeeda. waxaan u sheegayaa mujtamaca iyo wixii ummadda reer Somalilandba in arrintaasi arrin fawdo ah oo bareer ah oo maamul burburin iyo khalkhalin lagu gelinayo caasimadda iyo maamulkeeda inuu wado gudoomiyaha Salaxley. waxa dhacday halkan annagu beeralaydu way noo timaadaa codsi bay soo qorataa waxay tiraahdaa beertaydii baan doonayaa inaan cashuurtu dhahdo ninka beeralayda. waxaan u samaynaa waraaqo sharciya juwan baanu halkan uga xidhnaa codsigiisa juwan baanu ku lifaaqnaa $500 aan ku cashuurnay. beerta shalayta falku ka dhacay waxa ku jirtay joonmitiradii degmada Maxamuud Haybe iyo cagaftii dawladda iyo anigoo dhiisigii degmada anigoo jooga ayuu nagu yimi ninka la yiraahdo Shiine ee gudoomiyaha degmada Salaxley. ninkaasi si toos ah ayuu anshaxi maamul iyo tii mas'uuliyadeed wax ka baxsan nagula dhaqmay. waxa soo isagu wax qabiilaysi la yiraahdo tilmaamaya oo le maadigoo reer Hebela ayaad maanta halkan ka shaqeynaysaa qorsheynaysa maadigoo nin Arab ah ayaad halkan degmada Maxamuud Haybe ka shaqeynaysaa afkiisa ka yiri markhaatiyaal way leedahay. sudaankii guud ee beeshu ila fadhiyaa wuu iga dambayn doona hadalka aamina oo mas'uuliyiintii iyo dadkii ku tabcay degmada Salaxley way fadhidaa hadalka way iga dambayn doonta. wuxuu gudoomiyahaasi ku tiraabay war maadigoo reer Hebela doonaysa maanta bartanaad ka shaqeyso ka qorshayso anoo qolomayhi anoo shaqaale dawladeed baan shaqaale dawladeed ayaanay waajibaadkii dawladnimo iyo sunnihii dawladnimona waan ku shaqeeyaa anagu. waxaan mujtamaca reer Somaliland u sheegay halkan uga iftiiminayaa ninka maayarka sheeganaya degmada Salaxley inuu anshax darro maamul iyo faldambiyeed iska horkaan ummadeeda inuu faraha kula jiro. gacanka hadal bareera gaarigaygii waa lagu jajabiyay oo reer Hebelnimo uu leeyahay u dilay ninka ayaa gaarigaygii aan watay muraayadaha dhulka laga dhigay.
waxaad arkaysaa waa midiyuhu ila dhacay isaga raggiis aan iska qabanay gacmahayga oo kuwa waa midiyii walaha war ninka dila ninka reer hebel waxaan leeyahay anigu reer hebel ku tilmaami maayo sharcigaas ayna kala saari shiinow sharciga ayaa ina kala saari waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka daaqiliga iyo maayarada iyo salaadiinta wa faraynaa inaan ninkaasi nin u qalmo mas'uuliyadda hayo inaanu hayn nin mas'uuliyadda hayo u qalmo inaanu hayn ayaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnay waxaan leeyahay waddanku sharci buu leeyahay sharci baynu ku wada shaqaynaynaa sharci baa lagu kala dambeeyaa annagu fawdo ma wadno xadgudubna ma wadno wax aan maamulka degmadayeeda ama konsalka caasimada Hargeysa aanu xukuminna duulaan kuma nihin isagaa duulaan hunguriyeysan wada oo beelaysan oo anshaxa maamulnimo iyo qofnimo dibadda ka ah waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa mas'uulka saxaafadda ku qoray inuu xabada riday mas'uulka degmada Maxamuud Hayba haystaa cidna dhaawacay inaan waxba ka jirin cid gacan ka hadal aan u geysana haba yaraatay ayna jirin isagu gacan ka hadal loo geystay aflagaadooyin aan munaasib ahayn uga hadlay gaarigaygii ku jajabiyay isagoo waxyaalo anshaxa ka baxsan iyo maamulnimada ku hadlaya waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland iyo wasiirka daaqiliga arrintaas hoos tagta ee xukuumadda degmada Salaxleyba in laga qabto مسؤولية الرضا ومتى كوهايو ما كانوا حنكسر دوينيا سودان كجود باشا بيلها الصومالي لان سودان محمد سودان عبد القادر فليتفضل